السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنالي ومروين كسودو هذا كورسادني personal development. عشر كنا مانتي وحنكو براندونا عشر آد مهم واه نلاش هذا مهم واه سيدو كله. عشر كنا مانتي وحنكو براندونا عوان كيسو يهي سؤال واي مركا وريسة سؤال شاسي وحنا جينا إن أتكجوابتو سيسحانا أدو جوابتو أدبو حالو ليه مركا why we set a goal maxaan u dejisanaa goal maxaan u dejisanaa maxaan hadaf u samaysanaa inaan hadaf aan samaysano nolosheena aad iyo aad ay muhiim ugu tahay waxyaabo fara badan ama faa'iidooyin fara badan oo aan ka heli karnaa ama aan ka heli doonaa marka aan samaysano kadib hadafkaasi aan dejisano balse maxaan u dejisanaa hadaf marka hore intaanan su'aalahaasi aan ka jawaabin ama faa'iidooyinkaasi uu leeyahay hadaf dejisanta inaan hadaf aad dejisano faa'iidada ay leedahay waxaan isla arki doonaa hadaf muxuu yahay marka hore hadafku waa wax aad si taxadir leh aad u shiishaysid gaadhistiisa iyo inaad qorshayso oo aad ka shaqayso hadafku waxa lagu leeyahay waa wax adigu aad si taxadir leh aad u shiishaysid waa wax si taxadir leh aad u abaarayso waaye marka gaadhistiisa inaad gaarto aad u abaarayso weeyaan marka iyo sidoo kale aad qorsheynayso waliba inaad ka shaqayso waxyaabahaasi inaad gaarto aad ka shaqayso weeyaan marka hadafka haddii aan soo koobno marka hadaf haddii aan dejisano maxaan ka faa'iideynaa sababtoo ah noloshaani oo dhan waxay ku dhisan tahay hadaf haddii adigu aadan qorshe lahayn naftaada qorshe aadan u samaysanin iyada ayaa qorshe kuu samaynaysa marka midaasina la soco haddaba marka hadaf marka aan dejisano waxyaaba aan ka dhaxlayn waxaa ka mid ah ugu horeeya to get direction inaan helno direction to get direction inaan helno direction ayaa ka mid ah direction macnaheedu waxay tahay inaan jiho aan helno waddo aan ku soconayno inaan helno qaabka aan u soconayno inaan garanayno meesha aan u soconayno inaan garanayno meesha aan ka imaanayno inaan garanayno waxyaaba aan samaynayno inaan garanayno to get direction sababtoo ah hadaf ayaad dejisatay hadafkaasi aad dejisatay awgeed sababteed ayaa intaasi oo marka aad ku helaysaa oo faa'iidaha marka sidoo kale waxaa ka mid ah faa'iidada uu leeyahay hadafka marka aan dejisano ama aan ka helayno waxaa ka mid ah useful time in waqtigeena aan marka maarayno waqtigeena qiimaha badan leh aan ka faa'iidaysano waqtigeena si marka nidaamsan oo aan marka fiican aan u isticmaalno ayaa halkaasi marka aan ka helaynaa marka xaqiiqadii waxyaabaha dadka ay ku candoonayaan waxaa ka mid ah marka dadka aan rabin inay wax qabtaan waxaa ka mid ah marka inay mar walbo ay waqtiga marka eedda ay saarayaan oo leeyihiin waqti ayaa nagu yar waqtiga ayaa sidaa naga waqtigaani ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha asiga sida saxda dadka qofka faqiirka iyo qofka marka taajirka ay ka siman yihiin waxaa ka mid ah waqtiga ayaa ka mid ah faqiir walba ahaw sidoo kale taajir walba ahaw waxyaabaha adiga iyo qofkaasi aad ka simantihiin waxaa ka mid ah waqtigaasi ayaa ka mid ah marka haddii la dhihi lahaa ka waran qofba qofka ka taajirsan yahay ayaa waqtiga loo badina haddii la dhihi lahaa ka waran maxaa samayn lahayd marka waqtiga qof walbo bini aadin ah marka waa uu ka siman yahay 24 saacadood ayay isla haystaan marka adigu ka faa'iideyso ama ha ka faa'iideysanin marka okay sidoo kale waxaa ka mid ah boost our productivity inaan kor aan uga qaadno wax soo saarkeena sababtoo ah haddii aan hadaf aan dejisano oo aan leenahay hadaf cad oo marka aan rabno inaan ka dhabayno weliba si daacadnimo ah aan u dejisano oo aan rabno hadafkaasi inaan gaarno hadafkaasi marka waxa uu inoo soo wargelinaya marka shaqadeena aan qabanayno nooci doonta haato xafiis ka shaqeey marka product soo saar company ka shaqeey wax walba field walba adigu aad ku jirto ka oblay garay marka sidoo kale waxaa ka mid ah qodobada ama faa'iidada aan ka helayno marka goal aan dejisano become best version of ourselves inaan noqono become best version inaan noqono marka qof ka fiican midkii hore oo nafsadiisa asiga uu ahaa marka sidoo kale
sababtoo ah haddii aad hadaf dejisato oo hadafkaasi aad ku socoto waad ka duwan tahay qofkii shalay iska soconaya bilaa hadafka ahaa oo hadaf baan lahayn marka nolosha ba marka qiimo u lahayn iska ahaa oo maalinkii u dhalanayo qoraxda ay usoo baxayso kadibna qoraxda ay u dhacayso uu iska ahaa marka uu samaysto kadib hadafkaasi kadibna uu marka ku shaqeeyo ama ka shaqeeyo gaadhistiisa iyo marka inuu ka dhabeeyo markaas wuxuu noqonayaa qof ka duwan qofkii asiga uu ahaa marka faa'iido far badan ayuu ka helayaa marka sidoo kale waxaa ka mid ah self control ayaa noqonaynaa ama aad noqonaysaa qof naftiisa controli kara ka adag jihayn kara waxa asiga uu rabo faa'iido u leh marka ku qasbi kara oo marka ku riixi kara waxa asiga uu rabina uu ka diidi karo oo marka uu dhihi karo no maya halkan ma samayn karo halkan ma aadi karo qofkaani lama kulmi karo waa inaad dhihi kartaa weeyaan marka self control waaye marka aad hadaf leedahay sababtoo hadaf aad leedahay wax walba way ku dejisan yihiin bishaan oo dhan waxaa laga yaabaa inaad dejisatay jadwalkaaga oo maalinlaha ah inaad dejisatay ayaa laga yaabaa xitaa dadka aad la kulmayso aad qorato oo aad marka ay ku calaamaysan yihiin marka haddii qof marka uusan appointment ku samaynin ama uusan ka codsanin la kulan waxaa laga yaabaa marka inaad fursad u weyso ayaa laga yaabaa marka self controlkaasi muhiimadaas ayuu ku leeyahay sidoo kale waxaa ka mid ah goal inaan dejisano faa'iidada aan ka helayno waxaa ka mid ah achieve our dreams inaan marka gaarno oo marka aan samayno riyooyinkeena inaan gaarno ayaa ka mid ah inaan riyooyinkeena aan gaarno oo aan ka guungaarno oo aan ka dhabayno oo aan marka ka shaqeyno riyooyinkeena inay inoo rumoowaan ayaa ka mid ah marka sababtoo ah marka aad dejisanayso hadafka waxaad hadaf aad u dejisanaysaa waxay tahay inaad sheeyaal ama waxa inaad adigu aad samayso oo aad gaadho oo aad ka dhabayso weeyaan sida daayib aan ku soo aragnay hadafka marka aan soo qeexaynayn shiishid gaadhista iyo inaad qorsheyso oo aad ka shaqeyso marka achieve our dreams riyooyinkeena ayaan marka aan ku gaaraynaa dejinta hadafkaasi okay sidoo kale waxaa ka mid ah marka make good habits and overcome bad habits inaan samaysano marka caadooyin wanaagsan caadooyin fiican inaan samaysano oo aan dejisano oo aan yeelano oo aan marka overcome aan ku samayno ama aan ka gudubno marka bad habits caadooyinka xunxun inaan marka aan iska takhalusno ayaa ka mid ah oo aan samaysano oo aan dhisano caadooyin wanaagsan marka taas waxaa ku gaari kartaa marka inaad hadaf leedahay nolosha hadaf ay ku leedahay qorshe ay ku leedahay ayaad ku gaari kartaa weeyaan macnaheedu sidoo kale waxaa ka mid ah to make unique ourselves inaan noqono marka ama aan ka dhigno nafaheena kuwo marka unique ah oo annaga aan maamuli karno annaga wixii rabna aan u diri karno aan ku qabsan karno wixii rabnana aan u diidi karno inaan noqono ayay inoo suurgelinaysaa muddaasina sidoo kale waxaa lagu leeyahay independency and freedom of mind inaan noqono qof dad marka xor ah oo sidoo kale maskaxda dhankiisana freedomka oo xor ka ah inaan noqono ayay marka inoo suurgelinaysaa inaan dejisano goolka ugu dambeyn qodobka ugu dambeeya oo maahan balse qodobadani halkan inoogu xusan qodobka ugu dambeeya ayaan ula jeedaa get financial freedom inaad hesho marka financial freedom inaad hesho marka xorriyad maaliyadeed inaad hesho ayaa marka ay ku suurgelinaysaa ama ku suurgelinaya inaad dejisato goal marka aad leedahay sidoo kale waxaad gaari kartaa ayaa lagu leeyahay marka xorriyad dhaqaale inaad gaadho ayaad marka macquul ah oo aad samayn kartaa and more iyo waxyaabo intaani ka badan ayaad ka heli kartaa dejinta goal ama hadaf inaad dejisato sidoo kalena ogsoonow haddii noloshu aysan marka qorshe ku lahayn nolosha ayada ayaa qorshe ku sameynaysa marka midaasi ogow marnaba ma noqonayso marka adigu qorshe la-aan ma noqonayso waa inaad qorshe aad samaysataa marka halkii noloshu ama naftaadu ayada qorshe ay ku degi lahayd oo adigu marka aadan dejisan waa inaad marka adigu qorshe aad u dejisaa naftaadi iyo noloshaadi iyo mustaqbalkaagi si aad u noqoto ama aad u gaadho marka hadafyada iyo mustaqbalkaagaba
haddaba marka waxaan rabaa inta aanan soo afmeerin muuqaalkeena maantay haddii aad ku darayso adiguna sidoo kale qaybta commentiga inoogu reeb marka fikirkaaga saliimka sidoo kalena waxaan idinka codsanaynaa inaad janalka inoo taageertaan haddii aad naga daawanaysaan Facebook page-keenana aad falowda inoo saartaan ayaan idinka codsan lahaa oo aan idin soo xasuusin lahaa marka dhammaantiina soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh